بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولالك مركة هوري كسودو إذا عد إسلامي الأندلس مركة حتى وحن الله إذن كغبرينا إن وعملكين إذن كأقبلوا هوشا أتكسي سعطانا وإذن فوزيو مرتقاتكينا والله ونجيو وحد إنه شيكتا مقا عاقا السحدة ميدك ولالوه كو قرانيان إيو بيشا أتكت على طيبة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore walaalayaal waad salaamantihiin salaan kadib anoo magacayga oo jabhada laga yaqaan waa carab magacayga hooyada iyo aabahay ay baxsadeen oo lagu yaqaan waxa weeye Xuseen Rukow Maadi beesha anigu aan ka dhashay waa beesha gaal jecel qaasatan Doorwaaq. marka hore walaalaha mujaahidiinta dhamaantood waan salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. qaasatan aad iyo aad waxaan u salaamayaa umuurada oo ugu horeeya Abu Cubayda ilaa iyo amiir majmuucaha makaatibta kala duwan oo xisbada jabhaadka walaayooyinka macnaha amniga qayb kasta waan ka salaamayaa. qaasatan walaalaha kale aan salaamay aad iyo aad u salaamay waxa waaye walaalaha idaacadul al-Andalus aad baan u jeclahay. waa gartay jazakallahu khayran aquna. sidaad ogtahay dunida maanta halgan jihaadi ah ayaa ka socda oo u dhaxeeya muslimiinta iyo gaalada. maxay tahay fariintaada ku wajahan mujaahidiinta ka dagaalamaya dunida dacaladeeda? walaalaha muslimiinta oo caalamka ka jihaadaya fariintan u diraya waa fariin aad iyo aad u qaalisan. marka hore waan salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. marka labaad walaalayaal horta macnaha camalka kani waa iska shiddo badan yahay, aad buu dhib badan yahay, wax kasta ka dhici kara. walaalayaal hala sabro, camalka kana lagu sabro. gaalada juhdi badan iyo wacnaha wax kasta ay bixinaysaa. waxay bixinaysaa taangiga soo qaadanay diyaaradaha soo qaadanaysa waxba yaan u aabayeelin. ilaa nabigeena bugad buu u galay, Abu Bakar gud buu u galay, timir mirtada loo dhudhuqo jihaadka Soomaa. walaalayaal timir maadaama jihaadka loo soo dhudhuqo annagana waxaan cunaynaa hadda bariis basmanti iyo alaaba aan cunaynaa. timir ay ku soo sabreen walaalihi annagana waxaan ku samray laana miya bariis matmaan ku samray laanahay. walaalayaal ilaahay aan ka baqno, jihaadka kana aan ku sugnaano. ninka gudaha jooga iyo ninka caalamka kala joogaba walaalayaal jihaadkani waa jihaad oo caalami ah, ha lagu sabro. waa gartay barakallahu fiik. walaalaha mujaahidiinta ah ee ka dagaalamaya saaxada bariga Afrika iyagana maxaa fariinaha waad u haysaa ka hor inta aadan ka tagin? bismillaah. horta dhamaan walaalaha ku sugan saaxada jihaadka oo qaasatan Soomaaliya jabhadaha rag badan isla soo marnay, jabhadaha isla soo marnay. waxaan marka koow aan cafis weydiisanayna dhammaan walaalaha mujaahidiinta oo intii magacayga taqaana oo in alla intaan wax u dhimay horta cafis baan weydiisanayaa inay i cafiyaan. oo maantay maqlaan carab walaalkiina carab ha waa shahiiday oo amaliyada ayuu galay. haddaan maqashaan walaalayaal horta inaad cafisaan ayaan doonayaa. anigana horan baan idin cafiyo, cidaan wax u haystaba ma jirto. amiirkayga qaaliga hadda inaan magaciisa sheegana ma rabo. wacnaha aad baan u jeclahay amiirka asaga ah. waan amiirkii maanta soo diray asaga naftigiisa dhinac iga soo diray, iga soo abaabulay. asana fariintan u diray waxaan marka koowaad horta waan ku salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. amiir ragga adiga oo amiirku u tahay oo jabhadaadka ha ahaadaan, hadda ahaadaan si kale ha ahaadaan, amiir ragga ayaga diinta inaad ugu dadaasho oo quraanka akhriskooda dowraadka inaad ugu dadaasho ayaan jeclahay. ragga macnaha inay firfircoonadaan oo kala baxaan ayaa fiican. ragga macnaha ragna waa rag mastawa karo oo diinta macnaha ka taagan iyo rag mastawa hoose oo meel dhex taagan ayaan kala nahay. waxaan jeclahay amiirka markastaba inuu dadkii aniga ila midka ahaa inuu kor u baro oo diinta aad iyo aad u baro. amiir intaasaan ka codsan lahaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa tahay dadka muslimiinta ee ku dhageysanaya guud ahaan si gaar ah dadka jihaadka ka fadhiya ee guryahooda iyo adduunyadooda ku dhagan maxaa baaqa waad u jeedin lahayd? horta aqiyow walaalaha oo caalamka jooga oo hadda macnaha qaasatan adiga wareysatay oo jihaadka aana soo haleelan Sooma. walaalayaal horta jihaadka meel kasto taaganta horta waa haleeshay, waana ku taaganta mar baday niyadaada ku soo dhacday waad ku taaganta. waxaa loo baahan yahay bisaamaqaadka Ilaahay iskale inaad saamaqaada soo qaado. wadada u soo mar karto u soo mar. inaad dhex taagnaato ma aha meel gaal ay ka talinayso iyo meel macnaha gaalada macnaha laga jecel yahay inaad dhex taagnaato ma aha. inaad u soo baxdo waa meelaha islaamka ay jecel yihiin, islaamkana raayada islaamka looga talinay kalmatu la ilaaha illa Allah ay ka shaqeynayso oo maxkamadaheeda ay ka furan yihiin ayaan jeclahay inaad soo aadaan.
waa gartay insha Allah dadkeena Allah soo waafajiyo ee wadadan sharafta badan ee akhi culimada muslimiinta maxaa fariina wad u haysaa iyagana gaar ahaan culimada Soomaaliyeed horta walaal khayr Allah ku siiyo aad baan macnaha u yar ilowsanay maadaama culimadeeda aad igu soo dartay culimada horta aad iyo aad u mahadsan yihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh culimada ayaan salaamay marka labaad marka kale aad baan horta macnaha idin jeclahay ilaan waxa diinta dadka barhayaba waa adinki annaga diinta maadaama aan garanayno ku dhaqankeedii iyo macnaha fahankeedii waa naga yeeraleeti aad baan horta idinku mahad celinayna ilaahay subxaanahu qadarka camalkiina hadinka aqbalo walaalayaal diinta qaabkaad u taagantihiin ha ka sii saraf marto walaalayaal waxaan jeclahay inaad ka sii zaaidisaan adna fariisanin habeen iyo maalin aad ku dadaashaan siday diinta dadku ku baran lahaayeen oo gabdhaha walaalaha mujaahidiinta ha u dadaalaan gabdhaha walaalaha mujaahidiinta ha u dadaalaan alle annaga hooyo baana dhashay gabdho baana nala dhashay walaalahay waxaan jeclahay mar kastaba gabdhaha walaalaha mujaahidiinta ayagana waxaan jeclahay inay mar kastaba diinta barashadeeda ay ku dadaalaan waa gartay barakallahu fiik akhuna alle waxaan weydiisanaynaa in uu ikhlaas idinkaga dhigo hawshan qiimaha badan ee aad ku socotaan sidaad ogtahayba Soomaaliya halgan adag oo jihaadi ah ayaa ka socda kaasoo lagula jiro gaalada soo duushay haddana inta badan dadka Soomaaliyeed way ka fadhiyaan halgankan si gaar ah qabaa'ilka maxaad ugu baaqi lahayd qabaa'ilada ku nool Soomaaliya bismillaah horta qabaa'ilada walaalahay oo meel kastaba kala joogo qabiil kastaba ha ahaado anaguna qabiil baan ka dhashay qabiilo badan oo ila dhashay oo diris aan nahayn way wada jiraan qabiilaadkaasi walaalahay waxaan u soo jeedinayaa awalan ogaasidooda iyo suldamadooda ayaan horta macnaha baaq u dirayaa baaqaas uu yahay walaalayaal ilaahay subxaanahu qaadirka wuxuu idin duubay oo imaam idin ka dhigay ma aha inaad qabiilka iyo gurigiina ku ekaataan inaad diinta u nusraysaan oo diinta aad ka shaqeydaan oo diinta aad u carartaan maxog aad u carartaan ilaan diinta barashadeedii oo qabiilka la baraayay dad baa u soo xirtay dhagax maxog ugu soo xirtay caloosha ugu soo xirtay cid alla cidii qabiilka ka hor imaado diinta barashadeeda ka hor imaadana gacan ay iskaga qabtaan macnaha ilaan tafaarawaaq bay wadaan diinta bay ka hor imaadsan yihiin qabiilo badan baa jira oo macaadiidda aan yara furanay qabiilaadka macaadiidka aan furan waxaan jeclahay inay umuuradooda iyo dadkii macnaha malaaqiyada iyo dadkii imaamkooda inay ku daydaan qabiilaadka kale oo macaadiidka ay furaan waxbarashada diinta ay furaan oo ku dadaalaan waa gartay beesha aad ka dhalatay ka waran iyadana maxaa fariinaha waad u haysaa beesha aan ka dhashay dardaaran baan u dirayaa dhamaanteed aniga laf u kala saari ma macnaha jifin u kala saari ma dhamaanteed horta waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad beesha aniga aan ka dhashay horta jihaadka aad bay ugu yara liitaan soo galitaanka jihaadkii way ku yaryihiin inta geela raacaysa iyo inta jihaadka ku jirto inta geela raacaysa badan oo adduunku mashquulsan walaal adduun waxba idinma sidii mashquulin geela kani aad arkaysa awoogiina ka soo tagay abihiina ka tagay adeeryaashiina ka soo tagay adinkana dabadaad ku dhigantiin war adduunyo waa macnaha nafta lagu sasabaa mooyee adduunyo aakhira kuma geyso qabiilka aan ka dhashay beesha gaal jecel adduunyaas idin sasabana jihaadka soo aada oo haddana soo aada amaliyada hala soo qorto amaliyada dama ku sii yarnay runtan sheegaya walaal amaliyada waan ku yarnahay boqolkii markii inta qabiilaad kale ay qaataan annaga 2 iyo 3 naga soo gaartay ma fahanteen marka qabiilkayga waxaan leeyahay amaliyada hala soo aada oo jihaadka hala soo aada oo walaalaha mujaahidiinta meel kasta joogan garbahooda hala noqdo oo hala noqdo ansaarta ugu qaybaha badneed hala noqdo intaasaan leeyahay walaalahayga qabiilkayga anigu horta waa socdaa waxaan u socdo ma aha macnaha carab meeshaas soo galay oo ma socdo waxaan u socdaa kelimatu laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah ilaahi subxaanahu qaadirka la kulankiisa ayaan u socdaa وجه إلهي أيانا حيسو قوا جنة الفردوس أعلى أيانا حيسو قوا حور العينك إلهي سبحانه قادر كأنه قب بشاريي أيانا حيسو قوا قبلها ولا له مجاهدين تهم مقدسة جو أو عند شركة لقى قاضي أو كسمايش جو بلد وينة جو بولوبرت جو مالكس جو إن شركة لو ديديها وحنجعلها إن شركة كود إن مالكس تكون مرة حرد يكون نقضى أيجو جلباب كود إن شركة كود يقول في قعمها يجي سنة ووينه والله العظيم إن ملك استكشقيان أيان جعلها قبلها ولا عليه مجاهدين إن شاء الله تعالى ويدعيسا ويندعي دونتا الله أيانا كرجيننا تاسي أخونا عدوة كسي وجهنتهن محافرين أو أدريسا كهر أنت إذا نقوليه ذا أقتجن هرت ولا القير الله كسي هرت عدوة وجهناي عدوة قاسم أدب اسكي قد بتيه ما كنت من حاجة الله راعنا مرد بنا
وإله برنو فذي هرت عدو هرت قال واسلو راع قال رعنا واسلو راع مرتد نواقابو ليه مرتد كي قال كرتو أسليدين waxay horta kala duwantiin mar ilaa diinta Ilaahay subhanahu qadirka uu abuuray ayaad ka leexateen wadadeedii ayaad ka leexateen ilaa martidu waxad faa'iido leedahay male waxa ku soo horta inaad soo muslimto annagana waa idin ku soo wajahna horta inaad soo muslimta ku fiican waad soo muslimayso ma jahannam ayaad iga sii hormaraysaa waxa ku soo haray farmaajo horta waa nin Mareykan ah ninkii u maleeyay inay dad Soomaali yihiin Mareykan way waxay haystaan dhalasho Mareykan haystaan waa dad Mareykanka uu soo carbiyay oo soo dhaqan bedelay oo macnaha wuxuu raba ka soo suubsaday khayr laaba iyo farmaajo dad u maleysan dad inay Soomaali yihiin Soomaali ma aha yaa lagu kahdoomin Soomaali ma aha waxay Soomaali ku ahayn nin baasaboor Mareykan wato oo dhalasho Mareykan wato Mareykan uu soo carbiyay waa dad gaalo u shaqay gaalo u adeeg gaalana qaybihii ugu dambeeyay ee wareysiga ayaanu soo gaarnay maxaa fariinaha oo aad u haysaa hooyo iyo aabo dabcan warkaaga wuu gaari doonaa maxaad ku sabarsin lahayd bismillaah horta waalidiinta anagu i dhashay hooyada iyo aabahay aad baan u jeclahay hooyay horta anagu ma dhimanno horta qof maanta idinka tagi maaha waxaan ahay qof Ilaahay subhanahu qadirka uu doortay oo amaliyada qortay oo ishaadiye oo gaala ciribkooda goon rabo hooyo maanta waxaan ku wadada maantii qiyaam Ilaahay subhanahu qadirkan ku bariya inuu Ilaahay ku shafaaco qaado adii aabahiibo hooyo aniga maana dhimanno horta waan shahiiday Ilaahayna iga aqbalaya hooyo inaad ooynin aabo inaad ooyin walaalahay inaad ooynin ya aad isoo duceysa maalintaad maqashaan walaalkiina masuuliyiinkiina wuu galay aad isoo duceysaan ayaan horta ku leeyahay dadka qaarkiisa waxay ku ay lahaan aniga hooyadii hadaan ka taga aniga dad ba u joogo anigu hooyaday gabdha muuye wax kale u joogo male wiil aniga oo ma faande anigana waxaan ka jeclaaday hooyaday aabe inaan la joogo Ilaahay la kulankiisa ka sii jeclaaday ma faande hooyay hadad u maleysay aniga inaan ka tagi kaama tagin maanta qiyaamo ayaan kulmeena aabo maanta qiyaamo ayaan kulmeena dadka wiilasha badan dhalay oo jihaadka ka fadhiya ha ku waana qaataan adigoo aniga i dhalay oo hooyay anigana jihaadka ii sii diray hooyay ha ku waana qaataan waa maamada dhashay 5 wiil mise 6 wiil mise 10 wiil dhashay oo amalkana ka fadhiya ha ku waana qaataan adigoo aniga i dhalay oo kaligii aan ahay ayaa dush iga sii taabato socod iraada hooyo ya hooyay sad ii taabatay calooshaada u xiro maanta qiyaamo oo Ilaahay subhanahu qadirka jannat firdaus a'la ya no balan hooyo meesha ku balanay aaboona meesha ku balanay jazakallahu khairan aquna Ilaahi ha ku barakeeyo insha Allah waxaan rajaynaynaa in aad cibro iyo tusaale u noqotid dad badan oo jiilkan iyo jiilalka soo socdaba ah insha Allah ugu dambeyntii waxa jira walaalo badan oo aad ka wada tirsantiin guutada istishaadiyiinta balse waad kala horeysaan ragga aad ka soo hormartay ee qaa'imada kaaga dambeeya maxaad kula dardaarmi lahayd horta dhamaantood horta waan salaamay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka labaad horta walaalayaal sheeydaan idin galin sheeydaan wadooyinka hadda adiga aad ku taagan tahay sheeydamada yarad waa laga soo gudbi kii weynaayaa soo aafakanaya midka weynaa markuu soo fakada adiga xaragaadi aad haysantaasidiin xarag asaga ku dhagnaa yuus idin waswaasinin walaalayaal dadka hadda aniga aan ka soo tagay oo barnaamijkan ka soo tagay saaxiibadeeda qaaliga dadka guri aan ugu soo tagay dadkan meel kale ku soo maray walaalayaal yaa la sii deeynin gaalana hala xanuunjii in alle intii naga dambaysa ha nooga soo bajaaraysa maalintii isku nimaan jannat firdaus a'la ha nooga soo bajaaraysa gaala jabkeed gaaray maxaan ugu sii darayaa waqti gaalay dad ay ku soo maqan gaala meesha ahaato murtada ahaato mise mushrika ahaato mise munaafiqa ahaato horta gaalay waa idoogu soo wajahay inta hadda aan sheegay intaan soo arkinaa wixii ka badan ma fahanteen horta gaalay warba idin haystee inaad toobad keentaan idin fiican